السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تويد السلام يا ورا الليال. صفية ما الله يمغلا أختي. محمد ما الله يمغلا. ما يمغشان ولا الليال. محمد ما الله يمغلا ولا. ها وايدين ودا السلام يا ولا الليال مهد سند. وايدين ودا السلام يا ميل كستا جوجتان بو ولا الليال دالك iyo dibadaba. insha Allah wala الليال waxaan doonayaa hadii Ilaahay ka dhigo waxaan ka hadli lahaa subject-ga xagga sare ku qoran waxaan ka hadli lahaa blue makeup fuad marka insha Allah waxaan doonayaa video-gan inaad share garaysaan si ay dad kale u soo galaan dabadeetana aan insha Allah dhowr kalmadood halkan ka idhaahdo inta Ilaahay iga fahansiiyo marka insha Allah inoo share gareeya si ay dadku u soo galaan kabla minute baan insha Allah sugaya hadii Allah idmo I know dadku inaana iiga baranin inaan live soo galo laakiin marmar baan soo galaa live maalmihii ugu dambeeyay marka insha Allah ay brashare hadii aad ma aragtay aad share garaysaan oo inoo soo invite garaysaan dadka siday u ogaadaan waxa aan ka hadlayo waa mahadsantihiin aad baan kulligiin idin wada salaamaya walaalayaal insha Allah dhowr daqiiqan sugi doona I know in waqtiyo kala bedelan lagu jiro dadka qaar ay habeen u tahay dadka qaar ay maalin u tahay dadka qaar ay evening u tahay waayo waxa la kala joogaa adduuni ma aragtay qofba uu meel ku nool yahay laakiin insha Allah kabla minute baan sugaynaa dhowr arrimood baan ka soo jeedin la insha Allah inta Ilaahay iga fahansiiyo soona wada dhawaada idinkoo mahadsan soo dhawaada walaalayaal soo dhawaada I'm not ignoring you bal soo dhawaada meel kasta joogtaanba waa idin salaamaya maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo blue makeup fuad marka insha Allah video waxaan rabaa insha Allah inaad share garaysaan si dad kale ay u soo galaan insha Allah anigu hadii jaraal live kuma badneen aan soo galo walaal maalmahan ugu dambeysay aan soo galgalay waayo inta badan chance ma helo aan ku soo galo laakiin waxaan doonayaa halkan inaan ka idhaahdo dhowr kalmadood insha Allah inta Ilaahay iga fahansiiyo marka aad baan idin wada salaamaya walaalayaal soo dhawaada where is everybody ما لا في عيا هرت عافماتك كورمة في عندي ولا ليال
ما شاء الله. soo dhawaada walaalayaal waa idin salaamaya mar labaad iyo mar saddexaad ba soo dhawaadaan idin leeyahay meel kasta joogtaanba aad ban marka hore idin salaamaya walaalayaal meel kasta joogtaanba waan idin soo dhaweynaya dhowr kalmadood baan doonaya inaan galabta halka ka idhaahdo insha Allah inta ilaahay iga fahansiiyo oo ku saabsan blue makeup fuaad insha Allah marka soo dhawaada kulligiin waana idin salaamaya dalka iyo dibadda meeshaad ku nooshihiin waxaan jeclaan lahaa inaad videogan sii share garaysaan si ay dadku ogaadaan oo dabatana u soo galaan insha Allah live-ka kuma badniinta badan ya وانا idin soo wada dhaweynaya walaalayaal soo dhawaada walaalayaal qofkay habeen wanaagsan u tahay habeen wanaagsan qofkay maalin wanaagsan u tahay maalin wanaagsan ya meel kasta ka soo galaysaanba soo dhawaada walaalayaal khayr Allah idin siiyo maanta waxaan doonay waqti hore inaan soo galo live-ka oo aan dhowrkan kalmadood halkan ka idhaahdo laakiin waqtiga ii saamixi waayay marka yesterday shalay bar baan soo galay markaana subject kalaan doonay inaan ka hadlo marka soo dhawaada walaalayaal waa idin soo wada dhaweynaya kulligiinba dalka iyo dibaddaba meeshaad joogtaanba walaalayaal kabla minute baan sugaynaa insha Allah hadday dad soo galaan intiina ku jirtaan waxaan jeclaan lahaa inaad videogan share garaysaan amaba aad sii qaybisaan qofba sida uu yaqaano si ay walaalaha kale u soo galaan insha Allah بسم الله إن شاء الله هذا الكي كان بلابنا يا وقتك إنه كفاية سنة وحبا ملها إن شاء الله recording كان هالكن كوسا مين دونا تدك أنت دقيسن دونتا أنت دقيسن يسا أي كلاس عندنا إن شاء الله مركا إن شاء الله one more time
إيسو قرولا هذا دي مغليسين إن شاء الله سيان مركا أنو بلابو إن شاء الله أنا وقتك جانسك كفايدي سنة إن شاء الله قفول بهاول باكد عدا so let me know هذا دي مغليسان ولا ليال one more time إن شاء الله رالين النقطة دي هذا ندي هذا دور قور ما يمغليسان وإنا كعص بيبا لغاية با آلدنا ندي كلا هذا ليو maybe sometimes هو ده كبيحي كرتا لكن وفي عنتا إن لو يديو إنا دي مغليسينيين كله ولا ليال ما الله يمغلان خير الله يدنسيه one more time إن شاء الله so اسكوتا هذا الكيغا ها مهدسني خير الله كسيه بسم الله الرحمن الرحيم مركا ugu horeysa waa idin salaamaya maanta halkan waxaan u soo galay insha Allah inaan halkan dhowr kalmadood ka ilaahdo inta Ilaahay iga fahansiyo oo ku saabsan videogan aan u record gareynaya public ah inaan ka hadlo wiilka blue makeup Fuad la yiraahdo Fuad oo maalmihii ugu dambeysay tamiiriyaha laga qof bay interrupt gareynayaan u malaynaya marka maalmihii ugu dambeysay last few days ki ugu dambeysay wad mahadsantihiin ku jiray media social media aad ugu jiray dad aad u fara badanina ay waxyaabo badan ka sheegayeen ayaan doonayaa inaan dhowr kalmadood ka ilaahdo inta fikradayda midna waan idin sheegaya intaan hadalkayga bilaabanin waxaad rabtiin wad soo qori kartiin waad mahadsantihiin thank you very much aad baad u mahadsantihiin walaalayaal dadka waxa jira qaar soo qoraya waxyaabo aan indhaha u roonayn oo aqliga u roonayn oo maskaxda bini'aadanka u roonayn bay dadka qaar soo qoraan dadka qaarna waxay soo qoraan wax wanaagsan oo indhuhu ay qabtaan haddaad wax wanaagsan soo qorto waad mahadsantahay baan ku leeyahay haddii aad wax xun soo qortana waad mahadsantahay baan ku leeyahay laakiin ha qorin inta aad qorin ka fiirso waxaad qofka bini'aadanka u soo qoraysid now pointigayga aan u dhaadhaco marka waxaa jirtay Fuad in maalmahan u dambeysay dad aad u fara badan ay caydsanayeen dad aad u fara badan inay ka hadlayeen xumaantiisa faafinayeen oo ku faafinayeen baraha la isugu yimaado dadka bini'aadanka kulmisa wiilkaas oo waxyaabo xun laga sheegayay oo aan hadda ka horna dhageystay videogiisa shalayto mooye doraato aan videogiisa dhageystay uu ka soo jawaabay uu yiri waxaad igu tuhmaysaan ama waxaad igu tilmaamaysaan anigu ma ihi waxaan ahay ruux Ilaahay sida uu abuuray marka ha igu dambaabina uu yiri marka haddii aynu nahay dad Soomaaliyeed dadkeena yani caawimada u baahan intaynu xumaanta sii faafinayno wax aan maaragtay qofku aanu ahayn laga sii sheegayo laga sii faafinayo haddii halku xumaanta ka faafinayo ma idin la tahay inuu si private qofka ula xiriiro qof waliba Facebook buu leeyahay oo maaragtay waa qof social ku dhex jira dadkii ku dhex jira waa la xiriiri karaa meel inbox ma loogu qori kari waayo oo si private ma loo waanin kari waayo wiilka oo wax ma loogu sheegi kari waayo laakiin maxaa loo oranayaa loo caayaya loo cayrsanayaa waxaanu ahayn loogu sheegaya walaalayaal qofku hadduu idin yiraahdo intuu hadlo waxaad igu tuhmaysaan ma ihi soo in laga haro maaha maxaynu laakiin dadka aynu u daba dhiganaa maxaan ku idhaahdaa aynaan isu caawin qof kastaba intuu qof kale ku walwalayo isagu ha isku walwalo
isagu ilmihiisa ha u boqo isagu naftiisa ha ku fakaro qof kale oo aan kaaga baahnayn maaragtay inaad waxyaabo xunxun aad ku tiraado maxaad ugu oranaysaa miyaad adigu jeceshay in maanta lagu caayo waa maya miyaad jeceshay ilmo aad dhashay in wax laga sheego waa maya maxaa markaa Fuaad loo dhibaataynayaa Fuaad dhibaato badan baa maalmihii ugu dambeysay la kulmay hadda ka hor Fuaad waan ku soo noqon doonaa arrinkiisa shalayto waan baxay hawl adduunyo ayaan u baxay oo suuq ayaan u baxay dukaan la yiraahdo Macy's anigu Mareykankan deganahay ayaan sid alaab ka soo iibso waxaan arkay dad aad u fara badan oo meeshii la marayay xiray oo maaragtay calaamado boodhar iyo wax aynkaas la taagan aadna music u fara badan oo meesha ka dhacayo waa marka dukaanka aan galayay baan ka hadlayaa dukaanka dhexdiisa waa laynkuna aad buu dheeraa dadka wax kuraasi ku fadhida iyo wax taagan iyo wax laynka ku jira intaba way lahaayeen rag iyo dumarba meeshii waan ku soo dhawaaday waxaan doonay inaan fahmo meesha wax ka socda nin baa weydiiyay waxaan ku yiri meesha maxaa maanta ka jira wuxuu yiri nin famous ah oo ku takhalusay makeup-ta ama turukada ayaa wuxuu ka soo dhoofay meel Mareykanka ka mid oo New York la yiraahdo state-ka New York ayuu ka soo dhoofay dabadeetana meeshan uu ballan ku lahaa Macy's makeup-tiisa ayuu markaa dadka u marinayay 3 bilood ka hor ayaa tigidhadiisa la sii goostay oo dadku halka ay iska register gareeyeen marka dad buu makeup u marinaya rag iyo dumarba marka horta waxaan idin sheegayaa Soomaaliyeey makeup-tu inay tahay wax la barto rag iyo dumarnana waa la bartaa ninku hadduu makeup barto ma aha inuu yahay rag xunxun marka Fuaad in laga leexdo ayaa wanaagsan Fuaad afkiisa ayuu ka cadeeyay inaanu ahayn nin xun laakiin dadka bili aadanka hormoonkiisa uu maaragtay aanu dadka qaarna ay ku badan tahay qaarna ay ka yar tahay marka waa wax normal ah isla markaana waxa aan sameeyay markan arkay laynku inuu dheer yahay lana laygu yidina 3 bilood ka hor baaba tigidhada la soo goostay danahayga anigu iska soo maamushay danahayga markaan iska soo maamushay waxay noqotay waqti dambe oo saacadu ayaad u maartay waqti dambe noqotay oo fiidnimo ah waxaan isiri aniga laftigaygu markaa bal meeshii dadku ay ku buuqsanaayeen markii inay dadka ka kala tageen in kale bal sii maro sii eeg ilaahay amarkiisa meeshii oo waxaan tagay dad yari markaa ay joogaan sababtoo tahay waa habeenimo qof waliba wuu hoyday ballantiisina wuu dhameystay Janice waxaan u helay wiilkii markaa famous-ka ahaa wuxuu wiilkani markaa u mariyaa qof walba uma mariyo makeup-ta wuxuu u mariyaa dadka famous-ka ah maxaan ku yiraahdaa dadka filimada dhiga waa nin Mareykanka laga yaqaano dadka filimada dhiga ayuu mariyaa waa nin caadiya laakiin turukadu barto ku takhalusay famous buu ku noqday waa famous buu ku noqday marka dadka wuxuu u mariyaa magaca leh ee laga yaqaano wadanka Mareykanka ah qof walba uma mariyo Janice-ka lagu helaana waa adag yahay aragtidiisa internet-ka laga goosanayay tigidhadiisa ayaa 900 ahayd qofka kaliya uu ku arkayo ama uu marinayo products-kaas Macy's-na way ka iibsanayaan ma fahmaysaan marka Fuaad waxaan imika ninkan u soo qaatay Fuaad waa shaqo la barto shaqadan u haya laakiin waa shaqo aan Soomaalida looga baranin inay hore ragoodu u qabtaan ma fahmaysiin walaalayaal one more time isoo qora hadii la maqlo hadii kala caawin iska shalayba wiiga go'ay ma ogtahay ana waqtiga ilaalinaya mahadsanid hadda waa bartay suulka yarisa loo taagay in baaban eegtaaba ama haa un baan eegtaa ama maya yaa wax kale ma eegaba khayr allah idisi marka waxaan oran lahaa makeup-tu waa wax la barto makeup-tu waa wax la iska dhaqo marna la marsado makeup-tu waa wax rag iyo dumarkuba ay marsadaan laakiin waa waxaan Soomaalidu hore u aqoonin oo uga baranin maxaan ku yiraahdaayay Soomaalida inay raggeedu marsadaan wadamadan aan joogno de waa la wada socdaa ummadoo dhami way marsataa wax ceebana maaha inuu markaa ninku xun yahay hadduu makeup ismariyo de idinku haddaydaan marsanin
dee u ogolaada qofka marsanaya midda kale ninkani waa shaqadiisii waxa laga yaabaa oo amaba aan laga yaabin ay tahay inuu fu'aad iskuul u aaday inuu fu'aad laysan u haysto khibradan uu ku shaqaynayo ee ku shaqaysanayo marka ma waxaad ku ataagaysaan sida ilaahay u abuuray mise waxaad ku ataagaysaan shaqadu haysto waayahay shaqada hadduu ka tago shaqo ma qoraysa adigoo shaqo ma siinaysaa waa maya marka waxa weeye haddii qofkeenna aad wax ku aragtaan walaalayaal intaad babliga soo dhigaysaan ee aad keenaysaan babliga waxa wanaagsan inaad qofka si barayfada ula xidhiidhaan oo keli ahaantii oydan ummadoo dhan soo dhexdhigin laakiin waxaad u malaysaa Soomaalidu inuu qof waliba lacag ka raadinayo video yar oo la soo duubo oo one sentence lagu helay sentence ba ka yar xitaa ayaa maaragtay ay u sifaafinayaan maxaa u diiday message yar oo qoraal ah inuu diro ilaahdo walaalo waxaan yani waxda aynu Soomaalida uga baranay maaha muxuu yahay dhaqankani qofkii hoos loo fooreysan maayo qofkii dad maaragtay culimo loo diri maayo hoos u wareysan maayo wax wanaagsan oo message wanaagsan u qori maayaan oo private intii aan la dhex keenin meeshan la isugu yimaado ee dadka kulmaysa marka waxaynu ka adagnahay haddaynu Soomaali nahay inagu horta qofka runta sheega waynu nacabnahay qofka shaqo aan hore looga aqoonin la yimaadana waynu nacabnahay sidan fu'aad oo kale ixmaantiisa la faafinayo ee lagu sheegayo waliba waxaanu ahayn lagu sheegayo ereyada xunxun ee qofka bini'aadanka aan ninka ragga lagu oran karin ee ay ragga qaarkood afka soo marinayaan waliba marka waxaan oran lahaa wiilkan yar aynu habareerka u nahay in eedada u nahay in aabayaasha ugu toosan nahay adeerayaasha ugu toosan nahay ee wax walba u nahay Soomaaliga dhalinyaradu waxyaabo badan bay bartaan oo maxaan ku yiraahdaa xirfadaha sida makeup oo kale marka fu'aadow mid baan ku sheegaya ama bulshadan aanu sheegaya horta shaqadan aad hayso shaqo Soomaali looga bartay maaha hadda ka hor waxa jirtay dad Soomaaliya deganaa oo xuquuqdooda bini'aadanku ay ciriiri ku jirtay oo ay kamid ahayd ninka timaha jara isagoo timihii ka jaray ayaa kii uu timaha ka jaray uu kala dhaqaaqay marka soo waa kii timaha jari jiray waa kii biraha tumi jiray waa kii kabaha tuli jiray waa xuquuqdii bini'aadanka ee ciriiriga ku jirtay ma fahmaysaa sababtoo ay tay shaqaan iyagu qaban kareen bay qaba ay ragani hayaan imikana waa kuwan oo ku wada shaqaysanayaanba waa ku do you get my point way ku wada shaqaysanayaan marka shaqadana aad la timi waa one of that waana shaqooyinka professionalka ay aanay hore looga baranin in la qabto bari ka maalina waxaad arki doontaa fu'aadow qaar badan oo makeup taasoo kale u bartay sababtoo ay makeup waa wax la barto waa wax lagu shaqaysto waa professional dadka famous-ka ah wadankan aan ku noolahay dad ninkaan shalay soo arko kale waa dadka famous-ka ah ee famous-ka u mariyaan makeup tay u mariyaan midda kale walaalayaal anigu waxaan ahay kalkaalisaan ahay aan kalkaaliso ahaadee dhakhtar badan baan ka soo shaqeeyay waxaan ka soo shaqeeyay iskuulo badan oo macallimad baan ahay dadka bini'aadanka ilaahay abuurtay qaar baa hormoonku ku badan yahay ama hormoonka raggu ku badan yahay ama ka dumarku ku badan yahay waxa jira walaalayaal yani marka dhakhtarada aad ka shaqeynayso intaas oo qof baad arkaysaa oo especially caruurtu markay dhashaan ah markay waalidku ay arkaan ilmihiisa markuu yar yahay sida uu acting gareynayo laba magac baa loogu yeedhaa labada magac ee loogu yeedho waa magac ama gabadhna noqon kara wiil la noqon kara hadhowto markuu mustaqbalka qofkani weynaado marka waa wax jira inuu qofka bini'aadanka hormoonkiisa ku badan yahay haddii aan iskortaago hal iyo laba maxaa kamid ah magacyada Soomaalida oo kale inagu deelan ma inaan aqoonin wax walba waxaan doonaynaa inay wanaagsanaadaan oo wax waliba inaad kulli wada dhakhtar noqonaa rabnaa ma ogtahay mana noqon karno marka haddii aan iskortaago hal iyo laba magacyada sida magacyada inagaba magacyadeena ragana qaar baa sida Shukri oo kale haddaan soo qaato Shukri waana magac nin waana magac haween sida Xiis oo kale waana magac maxaan ku yiraahdaa haweene ah waana magac nin ah maxaan ku yiraahdaa marka sida aasoo kale ayay dadkan aan la nool lahayna ay ugu bixiyaan dadka magacyadaas oo kale you understand marka waxaan oran lahaa intaynu isku cayrsanayno abuur ilaahay aan fu'aad ku ataagarayno abuur ilaahay maxaad sidan u leedahay dema abuur ilaahay baad ka hor imanaysaa
haddaad se shakideen oo shakigu waa wax iman kare aad shakideen ma tartiib iyo meel qarsoon iyo meel maaragtay aan la faafinin sidan oo kala ah maaragtay private aad ugu sheegtiin wax maad soo wareysatiin markaa miyay habboonta in la caayo miyay habboonta in la sii cayriyo soo communitygiisa ka sii carari maayo maxay idinla tahay intaas oo kumanaana oo Soomaaliya markay Fuaad cayday ee waxaanu ahayn lagu tilmaamay ma idinla tahay soo qalbigiisu xumaan maayo soo niyadiisu xumaan mayso soo ma walwalaayo soo yani sababtay tahay abuur ilaahay baad ka hortibaadeen xaqaynu ku aragnay waxaan oo kale waxa loo baahan yahay qof waliba inuu isagu isku fakaro qof waliba inuu ka fakaro naftiisa uu ku mashquulo maxaa markaa loogu mashquulaya wiil yaran habaryar u nahay wiil yaran eedooyin u nahay maxaa lagu mashquulaya hooyada halkan ku jirta ama aabaha halkan ku jira hadda idageysanaya ama idageysanba doona qofkee jecel ilmahaaga oo hormoonkiisu ama wiil ugu badan yahay ama gabadh ugu badan yahay in laga hadlo 24 saacadood qofkee baa jecel bal ha soo qoreen qofna ma jecla so what so marka maxaa Fuaad wax looga sheegaya maxaa Fuaad loo dhibaataynaya walaalayaal waxaan oran lahaa shaqadu waa wax la barto inan kaana ha laga haro maalmihii u dambeysay dhibaatooyin aad u fara badan ba xaqiiqadii la mariyay inuu sii fogaadana maaha in la soo dhaweysto ayay tahay marka in qofka la sii fogeeyo maaha in qofka la sii xumeeyo maaha waa in qofka wax wanaagsan la tusaa waa in waana wanaagsan la tusaa waa in wax wanaagsan laga hadlaa laakiin xumaanta aad jeceshiin Soomaalida xumaanta aad jeceshiin xumaanta faafisan waxaan imanka marmarka qaarkood waxaan arkaa laba qof oo wax yar isku qabtay hadda wax yar oo basic isku qabteen waa la sii faafinayaa intaasoo waxba lagu sii raadinayaa israaqadu inay meel walba gasho maaha israaqadu maaha in wax la faafinayo xumaan la faafinayo inay gasho maaha Fuaad waxaad ku tilmaanteen waxaanu ahayn afkiisina wuu ka cadeeyay intuu kamarad soo hor fariistay buu idinku yiri ma ihi waxaad igu tuumaysaan aad igu tilmaamaysaan iga daayay de marka back off all of you. You understand? وين marka ka leexataan qofka ma iska xukumaysan idinku ma xukun degdegad markiiba ku qaadaysan kulligiin oo dhan miyaydan ka fikireen inuu yahay wiil yar oo dhalinyaro ah miyaydan ka fikireen inuu yahay wiil yar oo Soomaaliya miyaydan ka fikireen inuu yahay wiil yar oo qurba jooga maxaad u sii fogeynaysan mid kale waa wuxuu ku dhashay wuu idin sheegay Soomaaliga ma fahantaan miya ولا لا يلا one more time يسوق إن شاء الله هدي الله يمقل خير الله يدنسيه إذنكم محدثن ما لا ينمقلا ولا لا خير الله يدنسيه one more time يسوق هاي صورنينا مرايدة يقشنت هاي يوم محمد آخر يسمى وقتها لكن وأنا آخر وأنا بوكله لاني خيرها ومهاتسنتها خير الله كسير مركا ولا ليال وحنا ونعكسن إن هدي إنه صومالين هاي please and please إنه يسكت إنه وحيابها إنه لسه بود إنه حمانته هي دقة إنه يسكت إنه هو بصدق عكته ودقة هو بصدق عكته ودقة فهمه وحماش مركا واحد وصعدا فهمه marka yaan lagu wiilkan yarna hala dhigan anigu oran lahaa dadka si aad iyo aad ka u sii sheer gareeyay qaar ba kale ku jira hooyooyin ban kulligeen wadanahay inta ilaahay aan ilma siinina Allah siiyo laakiin maxaa xumaanta loo siisba intii la sii wada aabayaal waxa sii sheer gareynaya ilmaha kuwa xitaa sii sheer gareeya kuwa aabaha dhawta sii noqon doona maxaa looga hubsan waayay intaani xumaantu aanay sii tagin aanay sii faafin in wiilka aan lagu sii beerin dhibaato kale lagu sii beerin walaalayaal aad baan wallahi uga xumaaday sababtoo ay tahay deemaynaan arkin qarni dhan oo qof kaliya hal mar ku soo wada jeesanaya qarni dhan oo hal mar qof ku soo wada jeesanaya
wax yar baa lagu arkaya halba sababtay tahay ugamaydaan baranin يعني waa wax idinku cusub nin makeup marinaya nin Soomaali oo makeup marinaya waa wax idinku cusub si maada raaliga noqda maadaama uu yahay wax inagu cusubna waa la yaabteen marka hala yaabina one more once again makeup waa wax la baran karo waa wax la saari karo waana wax la iska dhaqi karo dadka famous ka abaana mariya wax cilmiga u leh marka waxaan oran lahaa Fuaadow kuwii lagu caydsanayay boorsooyinka ay sameeyaan iyo kuwii lagu caydsanayay timaha ay jaraan iyo kuwii lagu caydsanayay maxaan ku leeyahay digsiday wax ku cunayeen ay u sameeyeen shaqooyinkii ay la yimaadeen oo kale shaqo la mid aad keentay marka way ku wada eegeen hal mar bay isha kugu wada qabteen sababtoo ay tahay waxaan wax looga bartay ma yahayn iminkana waad aragtay shaqooyinkii la qaban jiray ee professionalka ahaa marka waa kuna iyaga ku wada shaqaysanaya marka iyagii baa imika timihi jaraya iyaga boorsooyinkii taray garanaya ilaa nin wali waxa ma sameyn karo ma ogtiin isla inay sameyn karaan boorsooyinka design-ka ay baran karaan kama toli karaan waa design la sameeyo oo qaaliya waliba marka dadkaasiba dad adiga oo kala abay habar yar ahaayeen welina yihiin oo laguna caydsadaa weli fikradooda iyo aqoontooda lagu caydsadaa still sababtoo ay tahay markay waxaan sameeyeen bay ku mashquulinayeen how come qofkani waxaan u sameeyay sababtoo ay tahay Soomaalida kale ma qaban karayaan ma yaqaaninba ma qaban karaanba tamarba uma hayaan beeshaba uma lahaba maskaxda uma hayaan ay ku sameeyaan ay kaba kugu sameeyaan ama ay kugu sameeyaan weel kugu sameeyaan ama ay design ku sameeyaan boorsooyin design ku sameeyaan marka shaqooyinkii halka laga qaban jiray in nimankaasi ay sameeyeen jireen waa inay xuquuqdii bini'aadanka ee cidhiidhiga ku jirtay laysan looga sameeyaa Soomaaliya oo nin qura oo Soomaaliya oo dambe aanu digsina sameyn karin maxaan ku idhaahdaa kabana toli karin maxaan ku idhaahdaa timana jari karin laakiin dadkii jari jiray loo daayo warshadahaasi marka ay soo baxaan ilaa dadkii aqoonta u lahaay awalba soo saaray xirfadana jooga ma ogtahay marka nin kale laysankiisa ma ku qabsanaysa Faysal laguma qabsanayo laysankan uu keensaday ma fahmaysiin laakiin waxaad ku tuhunteen ee xun ee aad ku caydeen ma aha wiilkani ha laga leexdo ha laga joogo walaalayaal taasaan idin leeyahay anigu maanta waxaanad ogaataan inaan wax badan waru hayo anigu oo aan ahay kalkaaliso neerasa aan ahayna macallimadna aan ahay ma fahmaysiin oo waxyaabo badan aan ka arkay bulshada dhexdeeda sida hormoonka oo kale ay ugu kala yar yihiin ay ugu kala badan yihiin marka wax lala yaabo maaha abuurta alla wax lala yaabo oo laga hor yimaado maaha walaalayaal ha ka hor imanina marka sidaas weeyaan walaalayaal marka question mark baad saartay baan u malaynayaa marka su'aashu waa caynka walaalayaal kulay in dooran soo hadlayay waana mahadsantihiin intaasan doonay walaalayaal inaan yiraahdo وهدي أد فهمتين كل قارب فهمي دونا قارب بدني ما فهمي دونا لكن I don't care وحن نقول تلاقي لي بدوني إن هلكن كاير هذا إن لقى مارتي فوق إن كاير لا مارتي معلومة هذا اللي كرسارنا إيه حتى أنا لا يسوى الراعي محا ومدنا نو يسوى الراعي دي حاجة الوارك هلكن وحن نقول مهاد عيالين أما عن ليه هاي سلامتهين وود مهاد سنتهين فنانينتي فؤاد كمرستي ميك اب تيسا aad bad u mahadsantiin walaalayaal inamadii kale iyaguna wareeyaasha haay wareystay waxaan leeyahay wad mahadsantiin idinkuna sababtoo ay tahay qofka maaragtay marka aragtaan waxyaabaha noocaas oo kala ah waa inaad step in ku sameeysan insha Allah aad baan idinkaga mahad celinayaa sad makeup uga marsateen gabdhaha wiilka marka waxaan doonayaa kale hadii uu Fuaad maqli doono fiidiyogan ama uu dhageysan doono fiidiyogan ama looga sheekayn doono fiidiyogan dadka habar yar aan la kulmay shalay oo kale ninka waxa la yiraahdaa Edward baa la yiraahdaa aan la kulmay waa nin famous ah oo dadka movie starka iyo nimanka wariyeyaasha ah iyo gabdhaha heesa iyo nimanka heesa ayuu u mariyaa iyo majaajilaystayaasha ayuu u mariyaa waa nin famous oo qof walba u marinin waana isla soo sawiray shalay tabla sawirkiisaan ku tusay sugada وانا isla soo sawiray shalayto marka habar yar hadaad u baahatay more information iyo wax ku caawiyo oo shaqadaada kaasi caawiyo ila soo xiriir insha Allah marka let me see bal waxaan tusaya sawirka hadda habar yar waxaan ku tusaya sawirka insha Allah
marka waxa loo baahan yahay waa haddii aad u baahan tahay insha Allah wax caawimo ah sababtoo ay tahay dadkaas oo kale la ma garanaysaa waa nin caadi ah buu ahaa I hope sawirkiisa inaad aragtid habareer qorrax yalla idh bays qabsaday oo markaa malaha maba arkaysaa mar malaynaya waa ninka aan la sawiranahay insha Allah habareer haddaad aragto waa famous weeyaan marka insha Allah haddaad u baahan tahay wax caawimo ah ama inay shaqadaadu hore u sii socoto insha Allah let me know inboxka haddaad daawato igu soo qor shalay mooyo daraadna message baan kuu soo qoray habar yar oo aan ku lahaa keep pushing aan ku lahaa waqti baan u waayay inaan video aad leedahay soo sameeyo marka insha Allah sidaas weeyaan aad iyo aadna meel kasta joogtaba waa kuu salaamayaa fanaaniintii ka marsatay maykabtiisana waa salaamayaa inamadii wariyeyaasha ahaa ee ku waraystay ee shaashada ku keenayna waa salaamayaa Soomaali weyn waxaan leeyahay Fuaad shaqadiisa uu qabanayo dub ha looga dago abuurta Ilaahay uu abuurayna ha ku caayina ee dub uga daga qof walba ku fikir ilmahaaga iyo reerahaaga xaasaskiina caruurtiina naagihiina ku mashquula wixiina idinku ku mashquula qof kale ha ku mashquulina naga daaya dhibaatada oo dadka dhibaatada ka daaya aad bay Soomaali u dhibaato badanta waligood bay dad bay caydsanayeen malay maqla wala leeyahay way insiina badgaleynaya khayr Allah idin siiyo aad ma hadsantiin sadagahiina iyo ma hayseen ee sharafta badan may maqashaan wala leeyahay khayr Allah idin siiyo way insiina badgaleynaya idinkoo ma hadsan okay khayr Allah idin siiyo waa marka insha Allah intaasan ku soo doonay inaan ku soo gabagabeeyo hadii Ilaahay idinka ka dhigo idinkana waa idin wada salaamaya khayrka aan isfarno xumaanta aan iska joojino xumaanta la sii faafinayo shaabad qofka ha kaga dhigina waxaanu ahayn idinku tiim baraha ku dhajinina oo go'aan iyo xukun degdeg ah ka gaadhina markiiba waxaydan hubin isagiyo Ilaahay bay soo waanu sheegay afkiisunu ka cadeeyay inaanu ahayn so what marka stop waa in la wada joojiya qof waliba wuxuu cafisna weydiista walaalayaal wiilka yarka ku soo dhaweynaya habar aad iyo aad baan ku salaamaya aad baan idin salaamaya bulshadan daawan doonta iyo waxa wax soo qori doona haddaad wax soo qortaan iyo haddaad wax wanaagsan soo qortaanba haddaad wax wanaagsan soo qortaan waa mahadsantihiin haddaad wax soo qortiin waa mahadsantihiin laakiin inta aanad qorin ka fiirso aad iyo aad baan idin salaamaya walaalayaal khayr badan Allah idin siiyo xaqana Allah ina wada tuso kulligeen oo dhan meel kasta aynu joognaba sidaa iyo habeen wacan oo wanaagsan